ma rabtaa inaad taajir noqoto ma la yaaban tahay sababta aanadoo ahayn taajir keligaa ma aha dad badan ayaa jecel inay noqdaan taajiriin balse ku guul daraystay inay rumeeyaan riyadooda sida ay mar u noqon lahaayeen taajiriin ku odhan maayo khamaar ciyaar si aad u noqoto taajir ama se guurso wiil ama gabadh maalqabeen ah si aad u noqoto taajir sidoo kale ku siin maayo talooyin guud mar oo aad hore u ogeyd balse waxaan kuu sheegi doonaa sida saxda ah ee loo noqdo taajir halkan waxaan kugu soo bandhigi doonaa 7 talaabo oo haddii aad samayso aad si heer sare u kordhin doonto fursadaha aad ku noqonayso taajir talaabada koowaad yeelo damac iyo rabitaan aad u sareeya haddii aad rabto inaad taajir noqoto waa inaad yeelataa damac iyo rabitaan aad u sareeya aad ku noqoto taajir si aad u ogaato inaad leedahay rabitaan iyo damac aad u sareeya weydii su'aalaha naftaada sawir cad oo maskaxda ama ka haysataa guriga iyo gaariga aad iibsan doonto mustaqbalka iyo nolosha aad ku noolaan doonto haddii alla kugu simo wax kasta ma u samaynaysaa oo ma u huraysaa sidii aad u kordhin lahayd dakhligaaga ma samaynaysaa dadaalkaaga ugu fiican ma u dagaalamaysaa har iyo habeen ma seexanaysaa wax yar ma isku dayaysaa wax cusub maalin walba mise waad ka duwan tahay sidaa oo ma kala jeclid dad badan ayaa rajeeyay inay noqdaan taajiriin laakiin soo ma jeclaan inay noqdaan taajiriin haddii aad dhab u doonayso inaad noqoto taajir waa inaad seexataa wax yar shaqaysaa wax badan wajahdaa khatar kasta u hurtaa wax kasta lana tartantaa qof kasta oo istaaga waddadaada markaasumaad noqonaysaa taajir dhammaan dadka taajiriinta noqday waxay u fikri jireen sidan si la mid a tallaabada labaad hagaaji fikirka aad ka haysato taajirnimada aaminna inaad u qalanto haddii aad aaminsan tahay inaad wax qaban karto waad qaban kartaa balse haddii aad aaminsan tahay inaanad wax qaban karin weligaa qaban maysid aamin inaad taajir noqon karto kana saar maskaxdaada fikradaha xadidaya fursadaha aad taajir ku noqon karto sida lacagtu waa shar nasiibu ma lihi lacagta ama ma hayo lacag igu fulan aan ku bilaabo ganacsi fikradahani ma aha oo kaliya qaar hoos kuu dhigaya balse waxay kuu diidayaan inaad wax isku day ah samayso taasoo kuu horseedaysa inaana taajir noqon haddaba si aad u noqoto taajir ka saar maskaxdaada fikradaha taagta daran ee curyaaminaya hadafkaaga kaana hor istaagaya inaad taajir noqoto tallaabada saddexaad bilow ganacsi aad leedahay bilaabidda ganacsi aad leedahay waa waddada ugu dhaqsaha badan ee lagu noqdo taajir weligaa taajir ku noqon maysid haddii aad qof u shaqayso ku dhiiro kuna fikir inaad samaysato ganacsi aad leedahay si aad u gaadho hadafkaaga inaad marun taajir noqoto tallaabada afraad dhigaal ka samee lacagtaada kaydsashada lacagtu waa mid ka mid a xirfadaha ugu muhiimsan ee lagu noqdo taajir ha kharash garayn in ka badan inta aad hesho ama xataa ha wada kharash garayn inta aad hesho haddii aad dhigato 20% lacagta ku soo gasha aanad ku wado maalin walba maalin maalmaha ka mid a waxaad noqon doontaa taajir tallaabada shanaad maalgashi samee sirta lagu noqdo taajir waa maalgashi waxaa la yidhaahdaa markaad wax ku bixiso $1,000 oo aad dib uga hesho $1,200 dadka qaar ayaa lacag dhigashada si qaldan u fahma oo joojiyay inay lacagtooda meelba ku bixiyaan isla markaana aan samayn wax maalgashiya maalgashigu waa habka kaliya aad ku kordhin karto lacagtaada dhigaalku wuxuu iskugu ka darayaa oo kaliya lacagtii aad heshay balse maalgashigu waa habka kaliya aad ku kordhin karto lacagtaada ha ka celin naftaada inaad lacag ku bixiso meel aad ogtahay inay lacagtaasi faa'iido kuu soo saari doonto mustaqbalka tallaabada lixaad baro cilmi si aad u noqoto taajir barashada cilmiga iyo aqoontu ma aha oo kaliya awood aqoontu waa lacag haddii aad u fiirsato dadka taajiriinta waxay ka helaan lacagtooda ilo kala duwan kuwaasi oo laba mid uun ku xidhan inay iibiyaan cilmiga ay leeyihiin ama inay u isticmaalaan cilmiga si ay uga helaan lacag kuwa aan lahayn cilmiga haddii aan si kale u dhigno cilmiga iyo aqoonta si toos ah ayaa loogu iibin karaa lacag ama waxaa loo isticmaali karaa si dadban si lacag looga helo ilo kala duwan haddaba u hur waqtigaaga barashada cilmiyada kala duwan baro xirfado dheeraada qaado koorasyo kala duwan waxna akhrinta ugu badan ee suurtagal ah tallaabada toddobaad ku noolow istaantar ka hooseeya heerka aad taagan tahay nolosha mid ka mid ah caadooyinka ay wadaagaan dadka taajiriinta ahi ayaa ah inay ku nool yihiin heer ka hooseeya heerka noloshooda caadiga ah tan macnaheedu waxay tahay inay iibsadaan gaadhi yar marka ay awood u leeyihiin inay iibsadaan gaadhi dhexdhexaad ah markay awood u leeyihiin inay iibsadaan gaadhi weyn sidoo kale inay iibsadaan gaadhi weyn
marka ay awood u leeyihiin inay iibsadaan diyaarad. haddii aad rabto inaad taajir noqoto lacag badanna aad yeelato ku noolow heer ka hooseeya standardkaaga caadiga ah. tan macnaheedu ma aha inaad naftaada ka mamnuucdo waxyaabaha aad jeceshahay, balse waa inaad hesho lacag dhigaal ah oo kuu soo hadha marka aad iibsato waxa aad rabto. raac tallaabooyinka aynu soo sheegnay waanaad ku guulaysan doontaa insha Allah inaad taajir noqoto. haddii aad wax fikrada qabto noogu soo gudbi xagga commentiga, hana iloobin inaad like saarto. mahadsanid. channelkan wax ka baro waa channel aan hubo inaad wax badan ka kororsan doonto. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe. mahadsanid.